shirkadda Dahabshiil Group ayaa daahfurtay adeeg cusub oo la magac baxay eDahab Public API waana adeeg shirkaddu ay ugu tala gashay inuu door weyn ka qaato isla markaana uu kobciyo ganacsatada yaryar ee soo koraysa iyo sidoo kale ganacsatada waaweyn iyo cid walba u baahata in xagga dhaqaalaha ay horumarka gaadho. Hadda munaasabadii daafurka barnaamijkan casriga ah ee eDahab Public API ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland, ergeyga Somaliland u qaabilsan wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga مسؤولين كسعوتا قار كميدا جامعadaha dalka iyo sidoo kale mas'uuliin kala duwan oo ka socota Dahabshiil Group aqoon-yahano iyo marti sharaf kala duwan ugu horeelkaas waxa ka hadlay qaar kamida mas'uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group waqtigan aynu ku jirno dogtiin COVID-19 iyo tiknoolajiyadan casriga ee horumaraysa inaynu la jaan qaadno ayaa adeegan ay u soo korisay shirkadda eDahab oo runtii wax badan ka tari doona adigoo gurigaaga iska jooga ama waqtigii ka baxay shaqada in ganacsiga ay ku shaqeeyo waxa loo guuray wax la yiraahdo digital economy oo ah in lagu dhex ganacsado internetka dhexdiisa sidaas darteed anagoo baahida ka duulayna waxa aanu u soo kordhinay macaamiisha number 1 iyo ganacsatada kale ee iyaguna ku xidhan shirkadda Dahabshiil adeegan oo ah hab casri ah oo lacag bixinta sahlaya waxa ka faa'iideysan kara barnaamijkan cid kasta oo doonaysa ganacsigeeda inay si online u iibiso ama internetka wax kaga iibsato ayaa maxay ahayd fursaddan ka faa'iideysan karta tusaale ahaan dhalinyarada hal-abuur kale ee raba inay ganacsi abuuraan laakiin aan lahayn hayntii iyo awoodii ay dukaan ku furi lahaayeen si yaroo fudud ayuu qofku u sameysanayaa website-kiisa wixiisi markaa online buu ku iibinaya marka adeegana u fududeynaya ganacsatada yaryar maanta jirta ee dukaanada leh iyaga laftoodu haddaanad awoodin inaad meherad kala furto haddii aanad awoodin inaad meherad kale ka furto Muqdisho Boosaaso Hargeysa waxa kugu filan public API furana kugu filan qof qurba jooga laga yaabaa inuu ganacsi hal-abuur buu hayaa qofkaas waxa laga yaabaa inuu wadankii yimaado ganacsiga abuuro waqti ku qaadanaysa oo talaftu qarshi baanta isagoo iska jooga London jooga ama Stockholm jooga ama Dubai jooga ayuu ganacsigiisa online ka dhigaya Somaliland ka hawlgelinaya Soomaaliya ka hawlgelinaya dadku iyagu public API isticmaalayeen uma ka iibsanayaan ganacsigii dadna delivery buu sameynaya barnaamijkan waxa kale ku jirta mid shaqo abuur adeegani waxtarka ugu weyn waxa uu leeyahay waa ganacsatada dhammaan heerarka kala duwan ay leeyihiin dhammaanna waxa uu hormood u noqonayaa yoolka iyo hiigsiga shirkadda Dahabshiil ay ka leedahay tiknoolajiyada dhanka kale iyaguna halkaas waxa ka hadlay qaar kamida marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadda daafurka barnaamijkaasi arinta marka aan ka imaado adeegan maanta indaafurana waa adeeg aad u muhiim ah bale maanta waxaad moodaa Somaliland tiknoolajiyada inay aad u hana qaaday qof kastoo aragto iyo nin kastoo dhalinyaro wuxuu ku fakirayaa sidii uu lacag uga sameyn lahaa internetka iyo tiknoolajiyada taasina waxay suurtagelaysaa oo kaliya markuu systemkan uu shaqeynayo oo lacag baa meeshan maraysa technology baa maraya marka waxaan ku faraxsanahay eDahab talaabada hore ay qaadeen inay inoo furayaan albaab cusub oo caruurteena dhalinyaradeena jaamacadaha ka soo baxaysa aad baan runtii ugu faraxsanahay xuseen ahaan shakhsiyan personally waanu isticmaalay eDahabka iyo isku xidhka account-ka jaamacadda magaceeda aan sitana waan ku isticmaalay company aan gaar u leeyahay oo private ama business-na runtii waan ka isticmaalay tusaale ahaan company-ga gaarka markaan soo qaado branch buu ku leeyahay magaalada Muqdisho branch-ka magaalada Muqdisho uu ku leeyahay waxa isku kay xidhan account-ka iyo portal Dahabshiil uu leeyahay lacagta Hargeysa ka maamula barnaamijkaas aan runtii ayaa fududeeyay gabagabadiina halkaas waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga abdeeq ergeyga Somaliland u qaabilsan wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya marwo adna aadan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqooyinka iyo arrimaha bulshada Somaliland marwo hindegaani oo dhamaantood soo dhaweeyay barnaamijkan Dahabshiil Groupna waa ku amaanan tahay ka wasaaradahan waxaanu dareemanaa maadaama aanu ku heelanahay sidii ganacsiga u furfurmi lahaa inay qayb ka mid tahay كل رنتي Dahabshiil hore u guuleysatay wala yaqaana applicationada cusub ay kan maanta u joogno kamid yahayna waxa rajeenayaa insha Allah inuu guuleysan doono reer Somaliland iyo adduunkaba wax badan ka tari doono waxaan munaasabadan quruxda badan ee qaaliga ah uga soo kacay hawla culus oo saaka aanu hawsha gacanta ku haynay laakiin marka aan arko wax horumar u ah dalkayga dayax hadaan joogo waan uga soo noqdaa shirkaddan Dahabshiil maanta halkan ugu marti qaaday waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya
inay maanta noqoto sharikadan weyn ee finance-ka maxaan ku in online ama si casriya wax loogu kala iibsan karo aad iyo aad baan ugu ammaanaya uguna mahadnaqaya waxaan runtii sharaf iyo karaamo bulshada reer Somaliland ka mudan shirkadda Dahabshiil Group marka loo eego horumarinta qaranka loo eego cashuur bixinta loo eego shaqaalaysiinta loo eego tadawarka iyo runtii tiknoolajiyada la jaan qaadayaan ee bulshadeena casriyeynayaan marba marka ka dambaysa shirkadda Dahabshiil Group ayaan mahadnaq balaaran runtii u gudbinaya maanta application-kan aynu u fadhino e-dahab online ganacsiga uu qofku ku samaysanayo ama uu ka dalbanayo ama ku iibinayo ama ku iibsanayo Abdulqaadir Cudi, Home Cable TV, Hargeysa.